McCausland waa 27 jir taksiile ah mar uu ka degay rakaabkii gaariga u saarnaa waxa uu la kulmay wax uusan filayn. McCausland oo lagu naanayso Baasi wuxuu xidhmooyin lacag ah ku wareejiyay booliska Boston kadib markii uu ogaaday lacag ku jirta shandad oo taalay kursiga dambe ee gaarigiisa. Lacagta waxaa iska leh nin darbi jiif ah oo hadda u naxariistay dhaxalkiisa. Booliska Boston ayaa sidaas yiri, sidaas ayaa la igu soo koriyay, waxaa la ii sheegay inaan sameeyo wax saxda ah, ayuu yiri ninka lacagta leh ee lagu magacaabo McCausland. Rakaabka ayaa ka codsaday darawalka taksiga inuu joojiyo gaariga uu ku sugo banaanka hoteelka 5 daqiiqo, balse nus saac ayaa la dhaafay. Darawalkii ayaa walaac dareemay, wuxuu galay hoteelka, wuxuu weydiiyay shaqaalaha joogay qaybta soo dhaweynta, laakiin shaqaaluhu waxay sheegeen inaysan arkin ninka uu raadinayo. Kadib wuxuu ku soo noqday taksiga wuxuuna arkay boorsadii iyo lacagtii. Booliska magaalada Boston waxaa u suuragalay inay la xiriiraan hoteelka oo ay helaan ninka, iyagoo xaqiijinaya in lacagta uu isagu leeyahay. Ninka ayaa lacagtaasi ka helay dhaxalkiisa wuxuuna haystay rasiid uu ku cadeynayo. Kadib booliska ayaa u sii daayay lacagtaas. Darawalka ayaa lagu ammaanay inuu muujiyay dhaqan ku dayasho mudan, waa in la aqoonsadaa daacadnimadiisa. Taliyaha booliska William Evans ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri, falkiisa waxay u taagan yihiin heerarka sare ee waaxdeena u leedahay wadayaasha. Markii booliska Boston weydiiyay ninka inuu jeclaan lahaa inuu abaalmariyo darawalka iyo in kale, wuxuu darawalkii siiyay $100. McCausland oo ah darawalka oo ka falceliyay lacagtaasi $100 abaalmarinta looga dhigay ayaa sheegay, waxaan intaasi ka heli lahaa soo celinta boorso yar ee jeebka lagu qaato oo dhuntay. Haddaba dhowr sano ka hor shirkad samaysa daraasadaha ayaa u kuurgashay bal inay ogaato daacadnimada dadka bini'aadamka. Baaritaanka oo laga sameeyay fagaarayaal kala duwan oo ku yaala magaalooyinka dalka Hindiya ayay shirkadda ka soo heshay 400 oo boorsooyinka la gashado, kaararka lacagaha iyo aqoonsiga ee jeebka lagu qaato. Goobahan oo kala ah bangiyada, hoteelada, saldhigyada booliska, xafiisyada boostada iyo maxkamadaha ayay dad badan ku hilmaameen boorsooyinkaasi, kuwaasi oo baaritaan laga sameeyay. Shaqaalaha shirkadda daraasadda samaysay oo gacanta ku dhigtay boorsooyinkaasi iyo alaabtii ku jirta ayaa gacanta ka saartay waardiyayaasha dhismayaasha ay ka heleen iyo dadkii ka shaqaynaya halka laga helay. Ragga baaritaanka sameynaya ayaa markii ay wareejiyeen alaabta durbadiiba meesha isaga dhaqaaqay. Qaar ka mid ah boorsooyinka la helay ayaa waxaa ku jira lacag lagu qiyaasay $3 iyo kaarar ku qoran yihiin ciwaanada dadkii ay ka lumeen. Isla kooxdii soo heshay boorsooyinkaasi ee baaritaanka sameynaya ayaa waxaa iska dhigeen inay iyagu leeyihiin, waxayna dib ugu laabteen isla waardiyayaashii iyo dadkii ay u dhiibeen alaabtii ay soo heleen si ay u ogaadaan daacadnimadooda, iyagoona arrintaasi u adeegsanayay baaritaankooda. Hase yeeshee waxaa daraasadda lagu ogaaday in dadkii alaabta u dhiibeen ay ahaayeen kuwa daacad ah oo aysan waxba kala bixin alaabtii ay u dhiibeen. Boorsooyinkaasi ayaa waxaa markii dambe dib looga celiyay dadkii lahaa oo kala jooga magaalooyin ka tirsan dalka Hindiya. Warbixinta daraasadda oo dhawaan la daabacay ayaa lagu ogaaday in dadka bini'aadamka ay ka daacadsan yihiin sida la moodayay. Alan Cohen oo ah khabiir darsa dabeecadaha dadka bini'aadamka waxna ka dhiga jaamacadda Michigan ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in warbixinta ay muujinayso wax aan la filaynin. Markuu dadku ay u soo jeesadaan sidii wax ay ugu heli lahaayeen nidaam daacadnimo ka fog damaca ah in wax la khiyaano waa uu bataa, ayuu yiri Alan Cohen. Magaalooyinka koonfurta dalka Hindiya ayaa ah kuwa ugu badan ee dadku dib u celiyeen boorsooyinka lacagta ee ku jirta iyo kuwa faaruqa ahaaba. Daraasadda ayaa sidoo kale muujinaysa in dumarka ay ka daacadsan yihiin ragga, oo dumar badan ayaa dib u celiyay boorsooyinka ay lacagta ku jirto iyo kuwa faaruqa ah. Shirkadda daraasadda samaysa ayaa sidoo kale hore u samaysay daraasad tan oo kale sanadii 2013 iyo 2016. Waxay 355 magaalo oo ku yaala 40 wadan ay ku kala daadiyeen 14,000 oo boorsooyin oo ay ku jiraan lacag dhan min $14, waxaana dal walba laga bartilmaameedsaday 8 magaalo ee ugu waaweyn. Waxaana soo baxday in dadka ku nool 38 dal oo ka mid ah 40 wadan ay intooda badan dib u celiyeen boorsooyinkii lacagta ay ku jireen. Dalalka ugu badan ay dadkiisu dib u celiyeen alaabadii lumay waxay kala ahaayeen Denmark 280% iyo Switzerland 370%, halka dalalka ugu hooseeyana ay kala ahaayeen Peru 13% iyo dalka Shiinaha 7%. Waxaa kale oo daraasadda lagu ogaaday in dadka ay kasii daacadsan yihiin marka ay arkaan boorso aanan wax lacag ah ama manfac ah ku jirin. Daraasaddan ayaa waxay muujinaysaa in dadka ay ka damqadaan dadka kale ee alaabta ka lunto, waana taasi sababta qaar badan oo ka mid ah ay dib ugu celiyeen boorsooyin
cuntooyinka ay heleen iyo alaabtii ku jirtay. Inkastoo ay adag tahay in qiimeyn lagu sameeyo daacadnimada dadka bini'aadamka ayaa haddana sanadkii 2015 daraasad ay samaysay shirkadda fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska waxaa lagu ogaaday in dadka ku nool dalalka Hindiya, Shiinaha, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ay yihiin kuwa daacadnimada ay ku yar tahay.